السلام عليكم دمانتي داوديال kusoo dhawaada cashir kale oo ku saabsan astaamaha dariiqa ama fair care station. Cashirkan waxaan kusoo qaadan doonaa astaamo muhiim u ah qofka baabuurka wada ama baranaya. Calaamadahani waa calaamado mamnuucaya baabuurka aad wadato meel aad la mari karto ama aanad la mari karin. Waxayna ku xidhan tahay gaadhiga aad wadato iyo miisaankiisa ama dhererkiisa. Haddii aanad iska jirin astaamahan ama aanad si fiican iskaga fiirin, waxaa dhici karta inuu gaadhiga dhibaato ka soo gaadho waayo dariiqa oo yar aawadeed. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad calaamadahan marka hore iska barato. Calaamadan waa calaamad mamnuucaysa baabuurka ama gaadhiga uu joogiisu ka dheer yahay 3.8 mitir ama 3 mitir iyo 80 sentimitir. Baabuurka joogiisu intaa ka dheer yahay meeshan ma mari karo sida baabuurta waaweyn ee xamuulka ama gawaadhida rarka aadka u dheer ku raran yahay. Ana badanaa lagu arkaa meelaha buundooyinka dariiqada hoos maraan ama meel bridge ah oo wada koosta ka marto. Gaadhiga caadiga ah se uu ka yar yahay ama uu ka joogiisu ka hooseeya 3.8 marka waad mari kartaa haddii aad gaadhi yar oo caadi ah wadato. astaantan waa mid mamnuucaysa baabuurta ballacow uu ka badan yahay 2 mitir. Gaadhi aad u ballaaran oo ballaciisu uu ka badan yahay 2 mitir dariiqan ma mari karo waayo dariiqan waa dariiq 2 mitir ah oo aad u yar. Tan waa astaan muujinaysa in aanay baabuurta yaryar iyo baabuurta waaweynba dariiqan aanay geli karin ama aanay mari karin. Calaamadan waa mid khusaysa miisaanka gaadhiga, ayna tilmaamaysaa gaadhiga miisaankiisu uu ka badan yahay 3.5 ton in aanu meeshan mari karin. 3.5 ton waxay noqonaysaa gaadhiyadan caadiga ah ee dadku ay wataan ee aan ahayn baabuurta waaweyn ee xamuulka ah. Marka gaadhiyada xamuulka ah lagama ogola dariiqan mana mari karaan, culayskooda awoodood lama ogola inay maraan. Calaamadan waa mid muujinaysa baabuurta 10 mitir dhererkoodu ka dheer yahay inaan loo ogolayn ama aanay mari karin dariiqan. Tusaale ahaan baabuurta isjiidka ah ee xamuulka ah ama baabuurta aadka u dhaadheer looma ogola inay wadadan maraan. Calaamadan waxay muujinaysaa guud ahaan inaan laga ogolayn dariiqan baabuurta waaweyn sida baabuurta xamuulka ah iyo sidii aynu hore u soo sheegnay gaadhiga caadiga ah oo aynu ku sheegnay miisaankiisa ama culayskiisu inuu ahaa 3.5. markaas waxay ka dhigan tahay 3.5 wixii ka culus ama culayskiisu uu ka badan yahay dariiqan ma mari karo. Calaamadan waa calaamad kale oo khusaysa miisaanka ama culayska gaadhiga, marka waxay macnaheedu noqonaysaa 2.8 ton baabuurkii ka weyn lama ogola inuu meeshan maro. Baabuurta caadiga ah ee inta badan dadku wataan looma ogola, waxay noqonaysaa baabuurta aadka u sii yaryar kaliya inay maraan meesha. Calaamadan wax badan kagama duwana kuwa aynu soo aragnay hadda. waxa kale oo ay ku kala duwan yihiin waa tirada oo ka badan intii hore. Marka 5.5 t-da haddii aad aragto ama xarafka ta markasta waa culayska ama miisaanka gaadhiga. Sidaas darteed 5.5 ton gaadhiga culayskiisu ka badan yahay wadadan ma mari karo ama laguma talagelin. intaas waxay noogu dhan cashirkeennii koobnaa ee ku saabsanaa meelaha ka mamnuuca in baabuurka lala maro. Tan iyo kulanka dambe, nabadgelyo.